هدي منك ميكتيس إلهي إيش صار الحمد أشكر هذه ماما صنتهاي بقولت ما أفرتق وينك أديس muuqaalka hooyadan Soomaaliyeed waxa lagu magacaabaa Zahro maalin ka hor ayaa sheekadeeda halkan idinku baahiyay iyadoo marka aad dalbanayso in lagu wareejiyo xitaa aragti ahaan la tuso meedka zawjkeeda oo markaa yaalo isbitaalka Digfaar ee ku yaala Muqdisho waxay sheegtay maamulka isbitaalka Digfaar inuu ku xujeeyay lacag dhan $4,000 Mareykanka lacagtaas daraadeedna loo diiday marxuumka inay asturaan sheeko walba waxay leedahay bilow iyo dhamaad sheekada maalintaas aan halkan kugu wadaagay waxay ahayd in hooyadan Soomaaliyeed xitaa maamulka isbitaalka lagala hadlo la caawiyo dhibka haystana laga dulqaado si marxuumka Allah u naxariistay ninkeedii ay u asturato maanta mar kale muuqaal kale ayaa halkan u fadhiya oo ay hadlayso isla hooyadii Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Zahro waa hooyo ubad oo dhan aan u joogin Soomaali oo dhan wiil iyo gabar ay u wada yihiin hooyada maanta way mahad celinaysaa waxay u mahad celinaysaa cid walba oo iyadu markaa tabarucaad siisay cid walba oo muuqaalkan share gareysay cid walba oo xanuunka geerida zawjkeeda iyo dhibaatadii hooyada haysatay la qaybsatay marka hore muuqaalkeeda ayaan daawanaynaa iyadoo hadlayso noo wada mahad celinayso dhamaanteen cid walba oo kaalin ka qaadatay in qoyska meedkooda ay helaan iyadoo aan markaa wax lacag laga qaadin السلام عليكم يكون سكري وما صنتهاي بقولت ما أفرتق وينك أديس مك واهل الشلوى صاع شريار وإنتي كوسا عدك كوسا تدو أو كوسا دو أو كل صا هالدو مقرب كي أسوك إيماني سيدادي أدوى ما صنت إيارك أجر حسنات لا يقصيو ددوينا إسو عابي أو صومالية أجر إن حرس لا سي غير لا سيو الحمد لله الشكر بالعالم إلهكم هذه هدي منك ميكتيس إلهي إيش صار الحمد لله الشكر هذه ماما صنتهاي بقولت ما أفرتق وينك أديس aragti ahaan in la aamino sheekada xitaa dadku way ku adkeed in hooyo Soomaaliyeed oo daa oo ilmeynayso oo codsanaysa meedka zawjkeeda in la tuso oo kaliya inay asturato iska daa dadku way qaadan waayeen maadaama sheekooyin noocan oo kala bulshada ku soo dhaxbadatay maalmihii dambe iyadoo oo aysan dadku xaqiiqda sheekadaysan ogaanin go'aano ay ka gaaraan aragti qalafsan ay ka baxsadaan mar kale hooyadan Soomaaliyeed waxay codsanaysaa in la caawiyo lambarada halkan ku qoran waxaan ka codsanaa waa hooyo oo aan u joogin wiil iyo gabar ubad markaan caawiyo horeyna nolosha qoyska ninkeeda ay ku tiirsaneed haddana waa hooyo iska xanuunsan oo dhibaato kale ku jirto qof walba oo Soomaaliyeed xitaa $1 $1 $2 cid walba oo wax siin karto waxa codsan lahaa hooyadan Soomaaliyeed lambarada halkan ku qoran inay ka wacaan caawiyaan wax u qabtaan xanuuno badan oo hay daraadeedna hooyada xitaa aysan shaqaysan karin qofkii ay ku nooleedna uu ka geeriyooday oolaadna aysan u joogin waa hooyo wiil walba oo Soomaaliyeed hooyo u ah gabar walba oo Soomaaliyeedna hooyo u tahay iyadu fallan ugu yaraan marka muuqaalkan xitaa la wadaag saaxiibadaada kale si looga dhaxeelo saaxiibadaada hal qof oo hooyadan xitaa $1 u diro mahadsanideen